السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta iyo fiiriyo cusub kusoo dhawaada Aamina channel. maanta waxaan ka hadlaynaa waa qiso aad iyo aad u xanuun badan. waxa la dhaabaa ninka walaalka ninka dadka lama arko. waxa weeyaan aad iyo aad baad salaamaya. assalaamu calaykum mar labaad. waxaan dilayaa meel ka jecel yahay kusoo dhawaada channelka marka u horeysa dad ugu cusubtay subscribe iyo like tabaysaar share gare comment wanaagsan noo soo qradii lahayra. maanta waxaynu ayaa qiso aad iyo aad qalbi taabad u leh. marka waxa weeyaan sheekadan waa sheeko ka dhacday dhulalka Carabaha. waxa weeyaan maamo waxa weeyaan ay ku dhacday sheekadani. maamadan waxay iskuursadeen ninkii markay iskuursadeen waxa ku dhacday amar Ilaahay. waayo amarka Ilaahay mar walba waa loo joogaa. qof waliba xanuun marna wax xanuunsan kara marna caafimaad iyo xanuun baa Ilaahay bay noo sameeyay bilaadan banayaynu nahay. marka waxa weeyaan maamadii gabadhii markay ninkii iskuursadeen ay wax yar guri lahaayeen ayaa waxa dhacday inay ninkii xanuunsaday. Ilaahay amarkiisa xanuun ayaa ku dhacay oo sariirta u jiifaan u dhaqdhaqaaq lahayn. muddo dheer ayuu xanuunsanayay. gabadhii markaa maxay hayday wallahi gabadh fiican ayay noqotay. waayo caafimaad ayay isku guursadeen. dad soo jeclaaday ayaan jecel soo dhaxmaray. kadib markaa amarka Ilaahay markuu yimaado waxa la isu guursanaya la isugu yimid waxa weeyaan in dib iyo dheef la isu deemoogtahay la qaybsado. marka waxa weeyaan gabadha hadduu ninkeeda xanuunsado wayna u dhabaaragta wayna u samirta wayna u dulqaadata. Ilaahay baritool ka dulqaadi kara. ninkuna waa sida ka daalik inuu isaguna markuu haday gabadhiisa xanuunsato inuu isaguna sida si ka daran uu sameeyo uu isaguna daryeelo uu daweeyo Ilaahay u bariyo markuu Ilaahay caafimaad siina noloshooda halkaas ka wadanayaan. marka waxa weeyaan gabadhii markuu ninkii xanuunkaasi ku yimid sariiryaal uu noqday ayaa waxa dhacday muddo aad dheer u noqotay. muddada dhowr iyo 20 sano ay gaadhay. meel kasta dhakhtarada wadanka gudaha marka ay joogaan meel kasta waa la mariyay. laakiin wali wax Ilaahay markaa shimbira uu soo bixiyay ma jirin. iyadu intaa iska dulqaaday waayo waa odageedii amarkii Ilaahay baa dhacay way ku qanacsanayd. aad iyo aad bay ugu moogday waqti u siin jirtay ninka u daryeeli jirtay maasha Allah ay aad iyo aad ugu faraxsanayd. Ilaahayna ay sugayso in Ilaahay maruun xanuunka uu ka qaadi doono. gabadhii markii dambe waxa u soo baxay ninka ciidahoodii inay dibadda u qalqaaliyaan oo la geeyo ee noqotay muxuu ahaa ninkii loo qaado. gabadhii markii ninkeedu noqday nin iska buka oo goor walba dayadii ay u tahay gacan yar u tahay oo iyadu rogrogayso iyadu wado qof waxay noqotay nafteedii sinacday oo nafteedii daryeelkii ilowday naanaga qof ninkeedii sariirta u yaalo oo dhaqdhaqaaq lahayn koleyba naftiisa koleyba ihtimaam ma siinayo waayo warwar kale ayaa ku furan. marka gabadhii sidaas ay dabatana qof nafteedii ilowday ayay noqotay oo ka warwaraysan odageedii. taasina qof walba taas way hor iman kartaa waayo waxay naf walba naftaada ka mid waayo markaad aragto dagaaga sariirta ku jiifa xasuustii ishagaajis daryeel qof waliba moogta hawada ka baxsan laana wax kala bad arkaysaa. marka gabadhii sidaas dabatana ninkii Ilaahay shimbir ugu soo saaray reerkoodii ayaa kaxaynama ay walaalayihiin. waxa la geeyay wadanada dibadda ayaa loo qaaday. ninkii dabatana cilaaj ayaa la doontay. Ilaahay shimbir ayaa uu soo siiyay. ninkii markii la geeyay dhowr iyo 20 sano kadib ayadiiba qof weyn isaga kaatay oo nafteedii markay dayadba daryeel siin weyday isadii ku mashquultay. ninkii waa la soo daweeyay maasha Allah Ilaahay uu soo caafiyay uu soo noqday. waxa la yiri markii dambe la keenay qisana waa qiso xaqiiqaha moodina qiso la iska soo imka alifay wadanka Carabaha ka dhacday waliba dadka ay ku dhacday waxa weey waa Suudaan reer Suudaaniina. markii dambe ee sheekadii ninkii uu soo caafimaaday uu yimid isagoo soo bogsaday muxuu abaalkiisii u ka dhigay. gabadhii maxay abaalkeedii noqotay waa qiso aad iyo aad u xanuun badan. baralayala markuu yimid wuxuu walaalay waxaan doonayaa maadaama intaana nin bukahay maantana Ilaahay farajii furan caafimaaday waxaan jeclaystay
inaan gabadh kala guursado. Subxaan allah. waayo wuxuu arkay dee qof imanka dee isaga noqotayba qof weyn buu u arkay oo dee muxuu ahaye aragtideeda buu dee uu ka yaabay. marka waxa laga yaaba maaha, waayo inta ay nafteeda waqti gelin isaga ayay waqti gelisay. marka maxay ku tusaysaa bilaadanka abaal nin gala waa la arkaa, nin gudasa lama arko. gabadhii halkii buu dabeetana waxaa la yidhi uu kaga tegay, waxaa la yidhi uu ku guursaday gabadh kale. marka waxa weeyaan qof walba markii aad wax qabanayso wallaahi dar ilaahay uu qabo. haddaad ninkaaga wax u qabanayso oo tagaabeynayso oo daryeel siinayso dar ilaahay u qabo, dar ilaahay u sii. waayo waxa laga yaabaa inaanad ka bixin, waxa laga yaabaa inaad ka hesho ya waa qof iyo garashadii weeyaan. garashada ilaahay baa dadka waa hadiyad alla bixiyo weeyaan. marka waxaan leeyahay gabadh walayba odayaaga iska daryeelo, waxa la wixii ilaahay dhibiyo dhaaf ilaahay subka hadaad ku qanacsan tahay waxay wad u qaban kartaa. kuna tarso markaad waxaan u qabanayso adigu dar ilaahay u qabo. qofkan bari wax kaaga soo baxay Allahu a'lam. marka gabadhi sidaas ay ku dambeysay aad iyo aad wallahi xanuun badan ugu dhacay, sidii ayay ku kala tageen. marka waxaan leeyahay channelka subscribe iyo like tawadi saara insha Allah qisooyin fiican kalena waan idin soo duubi doonaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.